السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan bilaabi doonaa koorso cusub. Koorsadaas lagu baran doono Microsoft Excel. Microsoft Excelku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ay shirkadaha ka noqdaan kuwa gudaha dalka ah, kuwa caalamiga ah, ha noqdaan iskuulada, jaamacadaha, meel walba waa shay oo u isticmaalaan inay wax ku xisaabiyaan. Waxyaalaha xisaabaadka loo isticmaalaa. Marka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha muhiimka u ah markii computer la baranayo. qof walbana san uu soonahay waa qof uu ku khasban yahay inuu isticmaalo computer-ka dhihi karnaa. Marka computer markii la baranayo waxyaalaha muhiimka in la barto ayuu ka mid yahay Microsoft Excel. Marka Microsoft Excel-ka koorsahan u qaadan doonaa anagoo ka bilaabayna 0 ilaa meel sare ayaan u wadi doonaa. Noqon maayaan koorsooyin kala go'ah. insha Allah tacaala waxaan rajeynaa inay noqdaan kuwa taxan ah. marka hadda casharkan koowaad waxaan ku qaadan doonaa waxyaalaha aas-aaska u ah adii shaashadan soo jeeda bal waxa ay falanqeynayso baan rabnaa insha Allah tacaala inaan marka hore sheegno. hadda meesha kore oo kale dhinacan faylka ka koreeya oo kale waxyaala loo yaqaan waxa kamid ah quick access toolbar ayaa loo yaqaanaa. saa dib dhan wada garanaysaan. si durmaraan u akhrin doonaa insha Allah tacaala. faylka homeka inserti ilaa iyo viewga laga gaarayo ayagu waxa loo yaqaanaa tabs baa loo yaqaanaa. marka waxay ka mid yihiin waxyaalaha ayagu muhiimka u ah oo waa la isticmaalaa. homeka waa la gelayaa, insertiga, viewga, meel walba aduu shaqooyin gaara laga qabtay leeyihiin. marka hadii wajahadan inaan mataqaanaa barano ayaa aad u muhiimsan. marka faylka ilaa iyo clipboardka ilaa intaas oo dhan intaan fayl ka hooseysa A1kan ku dhamaan intaan dhexe oo dhan intaan dhexda falaarta tahay oo dhan ayaga ribbon baa loo yaqaanaa. ribbonka marka isaga wuxuu kala baxaa noocyo kala duwan leh. noocyinka kaliya waxa mataqaanaa waa groups iyo arrimahaas kaliya. marka groups command weyn moogtaa. marka groups waxa noqonaya hadda clipboardkan waa groupska, fontkan waa group, alignmentigan, numberskan, styleskan, saleskan, editkan waxa dhan waa groups ayay noqonaya. marka arrinta ugu muhiimsan inta adigu wajahada intaas waa ugu muhiimsan. meesha ugu koreysa wajahadana adii waxa loo yaqaan dhinacan kore ba waxa loo yaqaan adii title ba loo yaqaan document. marka adii wajahada intaas ugu muhiimsan waxa kale waa dadku inta garanayaan. marka haddaan u nimaano qaybtan halkan haddaan u nimaano marka hadda hadda xaa ku dhufto wuxuu soo qoraya A1 buu soo qoraya. ma fahamtay. marka A1ka wuxuu ku wada halkan oo columns ah. halkan columns waa intaas loo yaqaana. halkaana waxa loo yaqaan waa rowgi. hadii waa kan waa joogtax kana waa jiiftax weey. waa jiiftax waa kama kooda. marka waxay ka dhigan tahay halkan markaan joogo waxa ku kulmay halkan oo 1 ah iyo halkan oo A baa ku kulmay. marka A iyo 1 bay isku noqdeen. hadda halkan taasoo ka soo qadatay waa B iyo 1. sababta halkan markii la eego xagan rowga ah muxuu ku yahay 1 buu ku yahay, halkaanna muxuu ku yahay B buu ku yahay. marka saa darteed wuxuu u noqonaya halkan B1 buu ku noqonaya. marka sidaas ola socdo. marka halkan markuu columns yahay halkan rowgi yahay. marka meeshan haddaan falaarta ku dhuftan waxa loo yaqaan ayaga sales baa loo yaqaan. marka sida oo socdo dhankana sheets waa garanaysaan oo أنا واحد استعمال مايكروسوفت إكسل لابد في كمان استعماله. مركا هكذا هو شيتس أيوة بدين كتابه هكذا فلارت كيس اللي فانا يه وكله. أداد كلام هكذا كله ريت كريم كدادي شيتس وكله. ريت كريم كدادي حنا وهنين بقص ما يكتا والجرين كتا وهايد جرين كتا. مركا وحياة هذا ما في استعمال كتا. هكذا هذا أول ما إنه هكذا هو زوم سكوي زوم كانترو باليرة. مركا adii intaasoo kale inaad taqaanaan baa filaya. marka groupiskii iyo baan ku waday. groupiski adigu waa kuwan keyboardkan, fontiga, alignment waxaas dhan groups baan ii sheegay. command disk haddaan u nimaano command hadda katkan oo kale waa amaro bixinaya moogta. wuxuu ku leeyahay can selection and put it on the clipboard. magacadan koobigii halkan waa garanaysaa conditional formatting format cell waxa dhan adii amare noqon amara lagu siin macna waxaan sameey kan jar kan ku digare baastigir waxaas kale amaradaas loo yaqaan. marka saa loo socdo insha Allah tacaala. casharka ugu muhiimsan waxa weeye ardaygu inta badan waa yaqaanaan
waxyaalahan inta hore ah marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye hadhow si loo isticmaali karaa Microsoft Excelka Microsoft Excelku dee waa aqoon dheer weeye aqoon base markii laga bilaabo ilaa meel fiican la wadi karo ma dhihi karo wax aad mataqaana la soo koobi kara maaha marka insha allahu tacaala hadda haddaan bal isweydiino bahal deer xagee ku dhammaadaa kuwan xarfaha xagee ku dhammaadaan meesha ugu dambeysa markaan rabo inaan qabto see sameynaya marka haddaa u baahan tahay meesha ugu dambeysa ee abcdan abcd ilaa meesha ugu dambeysa u tagtid waxaa sameynaysaa control ba marka qabatid ba hadha waxaa qabanaysa falaarta dhanka midigta waa qabanaysaa marka wuxuu ku geenaya xfg bu kuu soo qaban marka waa meesha ugu dambeysa wey haddaa rabta meeshii inaad dib ugu noqotid meeshii a1ki ku noqotay ama a1ki ku noqotay haddaa u baahan tahay control markaa qabatid falaarta dhanka bidixda muujinaysa ayaa aadaysaa arrowgaas waa taabanaysa meeshii kuu celinayo sidoo kale haddaa u baahan tahay colomiskan hadda kambaa muujina soo maahan colomiskan haddaa u baahanta meesha ugu dambeysa inaad tagin tirooyinka 1 2 3 tirada ugu dambeysa saantuna waxaa sameynaysaa isagana waa control samee falaarta dhanka hoos aadaysa ayaa taabanaysaa marka wuxuu geeyey meeshuu geeyey wataa meesha ugu hooseysa ayuu weeyey marka haddaa u baahan tahay meeshii inaad ku noqotidna de arrow koraa taabanaysa marka sidaa ula socdo haddaa u baahan tahay a b c d-dan inaad ayagana ka dhigtid maxaa yidhahdaa tirooyin haddaa ka dhigtid halkana macnaa 1 2 3 baa ku qoran halka haddaa u baahan tahay 1 2 3 inaad ku qortid waxaa samayn kartaa file baad tegeysaa meeshaan optioniska ayaa ku dhufanaysaa hadhow formulas baa kusii dhufanaysaa hadhow meeshaan ay ku qoran tahay work with formulaskan meesha hadda falaarta ku hayo r1 iyo c1 meeshaan reference stylekan baa waxaa saarta falaarta saaraysaa okay baa dhahaysaa meeshii waxay isku bedelaysaa tirooyin bay isku bedelaysaa haddaad u baahan tahay inaad abc ku soo celiso isla meeshii baad tegeysaaba options waa ku dhufanaysaa formulastan waa kusii dhufanaysaa meeshii baad tidka ka saaraysaa keliya ragteedii hore ayuu kuu soo celinaya marka dee casharkana hore nimad anaga waxaa muhiim noo ah inaan mar rabo inaan wajahadan iyo wax ku weri muhiim anayna wax xisaabino xogaha si loo mataqaanaa loo gelgelinayo xogahan arrimahan xagan ribonka ku dhex jiro dhan si loo isticmaalayo ha noqdaan common discount wax si loo isticmaalayo noo muhiimsan sida xogaha iyo xisaabaadka loo habeeyo arrimahaasaa noo muhiimsan inaan falanqeyno insha allahu tacaala marka casharkaas wuxuu noqon doonaa casharka hordhaca sidoo kale wuxuu noqonayaa mid aan ku baranay wajahada hore ee excelka inta kale waxaan kusii baran doonaa ayagoo si fiican u faahfaahsan waxaan kusii baran doonaa casharadan soo socda anagu awoodda waxaa saaraynaa koorso tayo leh oo ardaygu uu si fiican u fahmo excelka iyo shaqooyinka lagu qaban karo waxyaalaha uu muhiimka u yahay inaan barano wajahadan hadhow waa isticmaali doonta waa aan boldiga iyo waxaan hadhow marka isticmaalan laba si fiican usii falanqeyn doonaa insha allahu tacaala